magaalada muqdisho waxaa arooskooda uu ka dhacay laba fanaan oo aan kala liidan balse kala caansan fanaanada nimca habi oo baryahanba suuqa u shidnaay islamarkaana noqotay xidig caan ka noqotay caalamka iyo soomaalida dhexdeeda intaba ayaa arooskooda waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho ka ay isguursadeen ama ay isku calmadeen fanaan kale oo asaguna cajiib ah oo la magac baxay cabdulaahi gorod amaba dee hooyadii aabihii ay u bixiyeen waa tahay aroos cajiibayo ahay fanaaniin fara badan ayaa kasoo qayb galay maasha allah infitooyinkuna waxay ahayn kuwo faraha la isaga gubtay islamarkaana dagaal xoogan uu ka dhacay sidii qof walba uu ku heli lahaa infito mar un uu ku tago arooska nimca habi asxaabay maasha allah aroos qurux badan ayuu ahay runtii oo cajiiba oo dadkuna ay aad u jeclaadeen islamarkaana mar un ugey ay ka dhacday arooska runtii wuxuu ahaa mid maalmo la qaban qaabinaya islamarkaana invitationkiisu ay tiktok soo gaareen qof walbana uu u dirsanaya su-aal ah xageen ka hela invitada haddii lacagtaa xataa aan bixiye arooskaas ayaa magaalada muqdisho ka dhacay baryahan ba qabanqaabadiisuna ay socotay waxaad moodaa baraha bulshada si aada in laysula dhex marayo balse su-aasha ugu badan ee dadka isweydiinayaan ayaa waxay tahay maxaa xilligan kusoo beegay nimca arooskeeda sababtoo ah waxay leeyihiin dad badan daadnimca hadday muddo garoob ahayd oo ay muddo joogtay maxaa iminka loogu soo aadiyey xilligan oo la rabay inay magaalada ay day hore u gasho islamarkaana ay shaqo tagto maadaama ay hor yaalaan fursado badan oo caan ah amaba cajiib ah amaba ay noqotay qof caana fursado badan oo muhiima oo laga yaabo inay dhaqaalo fara badan ku sameyn kartaan ay hor yaalaan balse waxaa laga yaabaa inay taaso ka horeysatan oo balaanka arooska uu ka horreeyay caannimada islamarkaana xilligan uu kusoo aaday qabanqaabadiis balse dadku waxaa laga yaabaa inaysan ayagu isaga jawaabin su-aalahan ayagoon waxba kala socan xiriirku ma hore u jiray ma hadduu bilowday ma mid aan hore u socday midan hore u socon baa ma ninkani maadaama gabadhan cayn noqoto ka gaarsiinaya waxyaabo fara badan bay isweydiinayaan laakiin anagu kolleyba ilaah baa og maasha allah hadday isguursadeen waa hambaleynaynaa arooska waa wax lagu farco waana reer qurux badan oo la dhisay jacaylkoodan ka gartaa inuu yahay jacayl markaasi xididaystay oo aan cusbayn islamarkaana aad moodo inuu hore usii jiray maasha allah aad baan ugu hambaleynaa baarakallah fiikum baan leenahay arooskii loo aayay owlaad qeyrqabta ilaahay ha idinkala siiyo daawadayaasha iyo anagu waa idin hambaleynaynaa maasha allah goordhow waxaan idin tusayaa dee fanaaniintii ka qayb qaatay iyo dhowr eray oo ay ka dhaheen halkaa amaba dhowr heesooda ay halkaa ka qaadeen ayaan insha allah goordhow idin tusayaa lamaano runtii aad bay usoo labisteen qaybo kala duwanna waa leeyahay dhanka kale nimco iyo gabar kaloo wariya saaxiibteeda ayaa waxay u jawaabayaan amaba ay la hadlayaan dadka markasta yiraan nimco waa dhoofto oo wadanka waa ka tagta waxaana yiraahdeen sidan istadaay nimco may taginay nimco way joogtahayay ana ku sheego waa saxiixdayay ana ku sheego nimco waa baxday waa dhooftay yaa ka yeelay qaana wallahi inta soo nimco waa baxday marka baydhaba aadaysa fiidiyooda la soo qaataan kuri nimco waa joogtaa ma bixin heesta waa la gad intii ogaaleen ku shuba helay jaaniskaygi haddan helay jaaniskaygi invitationkii ayay ahaayeen kuwa satanina waa nimco oo halkaa iyo tiktoka iska kala kicinaysa maasha allah nimco aad baa runtii loogu xiiso qabaa waxaanay bulshadu ay ka dhowreysaa inay soo saarto hees kale oo midda beenta tira islamarkaana indhaha caalamka iyo kuwa dee dunida oo dhan iyo kuwa soomaalidaba si gaar ah usoo jiidata maasha allah runtii waxaa dadku isweydiinayaan talow heesta xigta ee ay nimco soo saari doonto
ma Soomaali un bay noqon doontaa mase sidii tii hore ay 4 luqadood iyo ka badan ku hayso doontaa waa cajiib runtii waa filaynaa sida ay noqoto waana ka warsugaynaa aad baa u mahadsantihiin maasha Allah tan iyo kulan dambe waxaan idin leeyahay aad baa u mahadsantihiin ha iloobinina dee leegta